Asalaamu calaykum. Xushaqda dunidu kubadda cagta waxay daawan doonaa mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan ama kulamada ugu cajiibsan tartanka lagu jecel yahay caalamka ee koobkii UEFA Champions League. Tartankan wuxuu kaga duwan yahay koobabka kale inuu yahay koob runtii mucaarad iyo muxaafid yar iyo weyn la wada daawanayo isla markaana ciyaar kasta ay tahay mid xiisaheeda gaar ka wadata. waxaa caawa marka xiisaha ugu sii yeelaya waxay tahay inay soo wajahayaan laba kooxood oo kooxda Real Madrid iyo kooxda kubadda cagta Liverpool. labada naadi waxay ku soo galayaan mid kastaba iyadoo duruufteeda aan la saadaalin karin. maxaan ula jeedaa? naadiga kubadda cagta ee Liverpool gurigeeda ku ciyaaraysa waxay ka timid duruuf aan qurux badnayn. kulamo xiriira oo la garaacay isla markaana 7 kulan oo kamid ah 8 kulan oo iyagu ciyaareen 6 kamid oo la garaacay. xaaladaha wanaagsan oo la tilmaamayo shax cusub oo kooxdu ay yeelatay oo ilaa hadda aan isfahmin xidigihii la keenay oo culays kooxda ku noqday bedelkeedii halkii faa'iido u noqon lahaayeen iyo duruufo la mid ah tii uga sii daran tahay kooxda kubadda cagta Liverpool macalinkeeda inuu wajahayo cadaadis xoogan taasoo sababi karta in xilkaba laga tuuro ninka lagu magacaabo Arne Slot dabcan iyadoo loo yahay silsilada khasaare ay soo gaareen warbaahinta ay hadal hayso isla markaana qolka labiska la sheegayo buuq inuu ka jiro dabcan xidigaha qaarkood falcelintii Salah markaad eegtid xidiga kale Van Dijk uu kamid yahay waxa la tilmaamayaa macalinku in culays hadda in uu kaga imanayo markaanu eegno nadiga kubadda cagta Liverpool waxa markaas iyadu ku guuleysatay in xidiga Sabozol ay dambeed midig ay ka ciyaarsiiso kulamadii ugu dambeeyay kulankii Frankfurt kooxdu waxay awoodeen inay 5 gool ku badiso laakiin haddana badintaasi wax badan markaas faa'iido lama helin oo guushaasi kooxda laga gaaray inta Jarmalka wax badan ma aysan soo kordhin marka laga hadlayo kulankan Real Madrid ay la ciyaari doonaan sababta uga duwan yahay kulamada kale wuxuu yahay kooxdu waxay u baahan tahay sanadkan inay u tartanto koobkii UEFA Champions League kulankan haddii guuldarro ay ka soo gaartay Liverpool bal guuldarro weyn tusaale 6 gool iyo gool 5 gool iyo waxba 4 gool iyo waxba waxay tahay natiijo bedeli karta xitaa habfakarka maamulka natiijooyinka noocaas oo kale waqtigan markay yimaadaan gaar ahaan marka cadaysku ku saaran yahay way ku salfan karaan markaad eegtid nadiga kubadda cagta ee Liverpool sidoo kale kulanka soo aadan waxay la ciyaarayaan ninaan sahlanayn waxaan ka hadlaynaa ninay adag tahay isagu in lala ciyaaro waa Pep Guardiola City inkastoo aysan ahayn City sanadihii la soo dhaafay haddana ma dhihi kartid City 3-6 dhibcood baa laga qaadanaya xilaareedka sababtoo ah mar walba Pep Guardiola ka cabso markaas way uma garan kartid wuxuu isagu ku qarinayo markaad eegtid nadiga kubadda cagta Real Madrid iyo Xavi Alonso heedu isagu lafsadiisa culays baa haysta guuldaradii ka soo gaartay kooxda kubadda cagta Atletico hal guul oo weyn bay keentay kooxda oo ah kooxda kubadda cagta Barcelona oo ay dhangadeeyeen markaa kulankaas oo xidigooda u dabaaldegeen sida final Cup UEFA Champions League ay qaadeen oo kale taasoo ka dhignayd dhadhanka koox weyn oo la garaaco waana waxa lagu eedeynayay Xavi Alonso inuusan awoodin kooxaha weyn inuu garaaco gaar ahaan kooxda kubadda cagta ee Atletico 5 gool ahay iyo kulamo kale oo la mid ah hadda Real Madrid waxay ku jirtaa duruuf wanaagsan iyadoo ka soo adkaatay kooxda kubadda cagta Barcelona iyadoo natiijo fiican haysata iyadoo kooxdu markaa qolkeeda labiska degan yahay xitaa la xaliyay sida la tilmaamayo oo isfahan iyo inaan la ciqaabin lagu xaliyay arrinkii uu sameeyay Vinicius waxa soo dhan waxay keeneen in la yiraahdo imise gool bay u baahan tahay kooxda kubadda cagta ee markaa Real Madrid si uga adkaato Liverpool kulankan natiijo isku dhow baan dhihi karnaa aad bay isugu dhowdahay laakiin mar walba waxa maamuli doonta kooxda goolka koowaad la hormarta labada kooxood hubaal waxay ku soo galayaan iyagoo taxadaraya iyagoon ciyaarta wada furaynin iyagoo mar walba ku socda taxadar iyo in aan la iska waalin ciyaarta inta la furo goolo lagu harqiyo culays ay la kulmaan taa aad bay uga dagaalami doonaan
culays kastana way ka hortagi doonaan marka, laakiin gool marka laga dhaliyo waad furaysaa ciyaarta. sidaas ayay horta isku bedeli doontaa marka la eego. waxa la isweydiinaa waxay tahay dagaalka garbaha Real Madrid baa ku fiican, waayo Vinicius iyo Rodrigo ba haystaan. kulankan anigu waxaan dhihi lahaa Vinicius iyo Rodrigo ciyaarsii. waa sax kulankii kooxda kubadda cagta Barcelona ku baxsatay Bellingham iyo Arda, laakiin Liverpool waxay ku siisay kuma siinayso Barcelona waxay ku siisay Liverpool kuma siinayso. khaasatan Real Madrid kuma tababaran doonto maanta kooxda kubadda cagta Liverpool, waayo iyagu xalay bay yimaadeen toos bayna ciyaarta u galayaan, tababar ma sameynayaan. waxay ku soo tababarteen kooxda kubadda cagta Real Madrid gurigeeda. sababtu waxay tahay inaan la duubin shaxda iyo habfakarka Xavi Alonso isla markaan ciyaarta uu ku soo galayo. sababtaas ayaa markaas haddii la duubo kadibna xidigaa loo daaraya, qaabkaas bay u ciyaarayaan, qaabkii waa laga koobiyeenaya, iyagaa lagu garaacaya ama hab difaaceed u qaasa ayaa loo diyaarinaya. Liverpool mushkiladeedu waxay tahay difaaciyan aad bay u dhibtoonaysaa, laa Van Dijk walaa Kanute ayaan fiicnayn. sidoo kale mushkilada build upka xeelad kale ku fiicnaayeen, laakiin liidashada Magalhaes, Gravenberch iyo Vert waxay keeneen in build upka ay markaas ku wanaagsanayn. Xavi Alonso wuxuu ka faa'iideysan karaa liidashada difaaciisa markaana sameyn karaya daqd ama cadaadis markaa, laakiin mar walba garoonka Anfield waa garoon saameyntiisa leh, buuq fara badan ay kugu furayaan taageerayaasha, natiijadu ay bedeli karayaan. waxaa lagu tilmaamaa laacibka 12aad marka laga hadlayo kubadaha dhulka yaala. Madrid muhiim buu u yahay markaas, aad bay ugu fiican tahay markaa Liverpool kulamadan oo kale. Liverpool aniga waxaan dhihi lahaa kubadda Real Madrid kubadda ciyaarin, waayo adi culays baad markaa la kulantay kulamadii ugu dambeeyay. ciyaar basa 4-4-2 aad ku ciyaaraysid, counter attack aad ku ciyaaraysid kooxda kubadda cagta Real Madrid. Real Madrid lafsadeedu tartanka khibrad bay ku leedahay, waa hooyadii tartankan. waxay haystaan xidiga cajiiba, counter attack ku khibrad badan. Vinicius, Rodrigo, Masantonu baa ka maqnaan doona. Alaba markii hore ma ciyaareen isaga iyo Rudiger. hadda waxaan dhihi karaynaa kulanka wuxuu noqon doonaa horta mid aan laba ka wada qoslin doonin, xiise gaara leh. nadiga kubadda cagta Real Madrid waxaad arki doontaan qeybta hore bilowga iyadoo cadaadin doonta, isla markaana Carvajal waa maqan yahay, Alaba, Rudiger iyo Masantonu waa kuwana, Frimpong, Alisson, Jones, Isaac waa la xaqiijiyey, Giovanni Leo iyo Bečić intuba lama heli doono markaas. طبعا Salah, Vert iyo Khagbo inay isfahmaan, haddii kale waxba kama soconayo. degdeg aad bay muhiim u tahay in macalinku uu farageliyo arrintan. sidoo kale Vert xitaa haddaan la heli karin, Szoboszlai qadkiisa dhexe u daaya, waayo Magalhaes aad buu liitaa waqtiyadii ugu dambeeyay. Gravenberch kulankan oo kale muhiim buu ahaa, laakiin inuusan ciyaarin bay markaasi wararka qaar ay sheegayaan, laakiin waan arki doonaa. isku soo wada dar nadiga kubadda cagta Real Madrid kulanka waxay ku badin kartaa 3 gool iyo gool. adigu fikirkaaga muxuu noqon karaa commentiga hoose.